silsilada maalin suganayama sifa iyo tilmaamo lagu wada socdaa jira keliyada silsilada maalin suganayama sifa iyo tilmaamo lagu wada socdaa jira deeqo aad baan ku salaamaya soo dhawow wax badan baa idin hayaa wararka qabdidahare sanad guuradii ogas maanta waan buuxa maalintan saraanin adduunyada simaniyo sahankii xornimada maalintan saraanin adduunyada simaniyo sahankii xornimada sumadaalinayno inuu wada sugayo sumcad noogu seedayo gosey horta maqal ma jira maqalka ma okada gosey salaamha saacadii aan joognaba sadir waxaanu barinaa obanimo sadigatiyo samayna kuwaare ogosey salaano ahey waad fahantay deeqow sanaqoro wacano saadaalinayno lagu wada sugayo sumcad noo horseedayo ogosey saacadii aan joognaba sadir waxaanu barinaa obanimo saldhigatiyo samayna kuwaane ogosey salaano muntaasay salaan gobeed soo dhowow aad baan ku salaamaya muntaha salaamu calaykum aad baan idin salaamayaa khiyaaray salaan gobeed salaan halgameed salaan ciideed muxuu yidhi abwaankii heesta curiyey wuxuu yidhi marka ay tirada ogos ku eg tahay 15 u abaabulaayo sida ciidi rabadaan ayaan farax lenoo tahay buu yidhi marka waa iska ayaan farax horta farxad kusoo dhawaada salaan gobanimeed kusoo dhawaada iska soo fadhiista nasta waxaan islahaa heestii ogosba lagu sii tuura ha kusii nastaan ha kusii sheergareeyaan barnaamijka xaaladda inta yara damqashada leh u dambeysay baan islahaa warka madaxdiisaan idinsiin si aad ugu sii sugtaan waxaynu ka hadli doonaa aynu u wada dabaaldegi doonaa aynu farxadda isla wadaagi doonaa maalinta ciidda shacabka soomaalida ogaadenya maalinkii halgankii hooyooyinka badan walaalaha badan ummadda badan loo waayey dhidibada loo aasay ah oo ogas ah waxaan kaloon ka hadli doonaa xaaladda qabdidahar oo maalmihii ugu dambeeyey marxalado kala gedisan oo isdaba jooga maraysay iyo marxaladii ugu dambeysay ee maanta niskii hore aan kasoo qornay warka oo faahfaahsan baan idinla wadaagi doonaa intaa kadibna bulshadaynu siin doonaa ra'yigooda aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada waa maskiinkii axmed heegan ahaa meesha
goobtaan idinkala hadlaya waa hegan web t v gaal eriow salaan halgameed aad baan ku salaamaya soo dhawaada markaa inoo sii sheergareeya heesta ogas aynu isla dhamaysano waxyaabo badan baa iska jira muddo badan baynu barnaamijkan liveka ka maqnayn hadda la qabsigiisa iyo inaad sidii loogu talagalay barnaamijka u dhamaystirtaaba kugu noqonaysa waqti markaad wixii muddo dheer ka maqnayd markaynu la dagaalamaynin nimankii tigreeg ah xilliyadii baa noogu dambeysaan u malnay barnaamij quman oon soo gallo oo waqti aan ku qaadano asad aad baan kuu salaamaya soo dhawow asadaja xilligan aniga asad meelahan tigreega ka dagaalamayna eryay aan dhisabo kasii saarayna baa noogu dambeysay barnaamij quman hadda caawa waa sanad guuradun baana soo gelisay iyo xaaladaha kasoo cusboonaaday gobolka qoraxay soo dhawaada heesta ogas intan dhiman baynu dhamaysanaynaa kadib warbixintii oo faahfaahsan baan idiin haynaa jawaabtuna waa xaggiina markaan warbixinta idin siino midabka qaarkii aan salugnaba asalaamu calaykum soo dhawaada khiyaare hadda waynu iska bilaabanaynaa barnaamijkeena raalli ahaada waqti haddaan idinka qaatay heestaan inaga joojinaya bulkade aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada inoo sii sheergareeya insha allah muddo yaroo kooban baynu isla qaadan doonaa waxaan ka hadli doonaa aas-aaskii jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya xilligii la aasaasay qaabkii loo aasaasay kadibna waxaynu u gudageli doonaa xaaladda gobolka qoraxay ka taagan iyo gobolka qoraxay maxaa ku gooniya
jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaa la aasaasay 1984 15 August oo maanta ku beegan. waxaa aasaasay 6 ay hadda ka nool yihiin 3 laba weli mabdii gobonimo doon ay sii haystaan, midna uu shacab yahay. 3dii kale allaha u naxariisto. waan usoo duceyneynaa shuhado waqti fiican tegay bay ahaayeen, qadiyadana iyagoo aaminsan ku tegay. allaha u naxariistay gudoomiyihii hore jamhadda wadaniga xoreynta Sheekh Ibraahim Cabdalla, madaxweynihii ugu horeeyay ee deegaankeena si sharciyana lagu soo doorto Cabdullaahi Maxamed Sacdi iyo Cabdiraxmaan Geele. allaha u naxariisto 3 nin oo tiirashii lagu istaajiyey qadiyadan dhowr iyo 30 sano jirsatay bay ahaayeen. waxaa nool xogayaha guud ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ururka Maxamed Ismaaciil Cumar, iyo Cabdi Magan oo hadda aan u malaynayo inuu joogo deegaankeenii. aad baan idin salaamaya. 6 nin baa aasaastay jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya xilligaa oo ahaa halgan shacab, oo halgan shacab lagu aas-aasay, oo shacabku fikirkiisa lahaa, oo shacabku taladiisa lahaa, oo hogaamintiisu shacab lahaa. waxaad la socotaan halgamadeenii hore een shacabku lahayn way fashilmi jireen. halganka ugu badan baa 3 sano halganka ugu badan baa 3 sano ilaa 2 sano jiri jiray. sababtuna waxay ahayd halgan meel kale ama laga hagayo ama majaraha meelo badan oo kale looga hayo ahaa. laakiin halgankeena wuxuu kaga duwanaa, wuxuu ahaa halgan gobonimo doon oo shacabku ayagu aayahooda ka tashanayaan, ayagu masiirkooda hogaaminayaan, oon cid kale oo tala u dhiibanaysa ayna lahayn. sidaa darteed buu hadda 35 sano loogu dabaaldegayaa. welina mabaadidiisa aynu sii haysanaa, inkastoo hadda qori hubaysan aynan wadanin, laakiin aan ku daga aas-aaskiisii wuxuu hore uu ahaa oo qalin iyo qori ahayd, inaan qalinkii hadda u diga roganay. mar xalay xilligii ay saacadda August isbedelaysaba waxaan isiri war nacala shaydaan ku yaale bahasha mar uun isku day. gobolka Ogaadeen baan ka imid, gobayna ma aqaano, 2 xarafna isuma keeni karo, ummaddu kaa yeeli mayse, bal nin balaaya ka dhacda iska dhigo deeqo. waxaan isiri bal gobay isku day. ilaahay amarkii markaasaan meel cidla u fadhiistay inaan gobyo un caawo oon August ka gobyo. ilaahay amarkii ku noqotay. markaasaan ogi dhan walba iska maray oon dhididay oon isku dayay ama hees ama gobay. de wixii ka dhacay baa ka dhacay, xun baan saa usii daayey. marka waa bahal qalbiyada dadka saa u wada tuujinaysa. iskumaanan fiicnayn gobayga. barbarukaadi bal aan sheegay war amuba gobay u ekaadaa oo la dhahaa nin orilen gobay waa kugu jiray. dabaal gobayga anma aqaana haygu qoslin haddaan gobi waayo. mise gobay lama dhehe, waxaa la dhahaa maanso markaadan baalku gobay ahayn. marka aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin. soo dhawaada. qabdidahar arrinteedana waynu ka hadli doonaa. waxaan yaro raadinayaa xalay markii xaaladdu xilligaa ahayd wixii aan idhi baan raadinayaa. waaban la ahayba ilaahay amarki. waata hadda deeq kolley waan ku dhaamaaye. waxaan idhi maalintii iftiinkiiyo ilis nuurku baxay ee albaabada adduunkiiyo rajadu noo adkaatay August haahey kaadi bal maxay ahayd maalintii aqoon-yahan 6 aragti dheer aas-aaska noo dhigeen hadaf gobonimo istaagay August hees bay bashuu noqon lahayd. maalintii odayaal iyo indheer garad dhalinyaro idlaatee hooyo iilka gelisay wixii ugu adkaa iyo dhiigga iibka looga dhigayay kuma ilaawi karaye August intaasaan sheegay. haddee way soo bixi doontaa haddee hees ka gaalsan inaan la arki doonin baan u malay. taas waa iga intaas iyo August iyo munaasabadeeda. meelo badan baa laga xusay, nin walba meeshuu joogaa taariikhda August iyo muhiimadeeda laga akhriyay. inagu inaynu farxadda isla qaybsanno baan usoo galay. waxaa jira oon usii gudbayaa maalmihii ugu dambeysay waxaad maqlayseen in xaalad ka aloosan tahay. waan sii daayey way ku dhaaftay, raalli ahow lagugu soo celin maaye. qabdidahar waxaa ka jiray marxalado isdaba jooga oo ka dhacay oo nu la soconay.
waxaynu kasoo qabsanaynaa 3 iyo 2 dhacday ugu dambeysay maalin dhaweyto gudoomiye ku-xigeenka xafiiska qabdidahar ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya unugta halkaa ka jirta ee xafiiska gudoomiye ku-xigeenkeeda iyo waxaa baabuur isla soo raaceen qolyo kamida qolyihii new booliska ahaa kadib calaamada ururka yuu watay gudoomiye ku-xigeenka sheekh yuusuf waxay ku dhaheen calaamadan xuntaha maxaa kugu ra waa lasaaf dhaafay markaa nabar bay gaadhsiiyeen nabarkaa oo wejiga kaga yaala gudoomiye ku-xigeenka xafiiska qabdidahar ee ururka jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya dhacdadii oo taagan baa haddana gabadhii hogaanka dhaqaalaha ahayd ee xafiiskaas waa kii dhaawaca jirdilka xun loo geystay sida bahalnimada ay u jirdileen arrinta gabadha waxaa kale oon saxaafadda aynan aada loola wadaagin dadka badan inta badan ay ogeyn markii gabadha nabarada dhaawaca loo geysanayay baa wiil maskixiyan yara xanuunsan oo meesha marayay baa wuxuu isku dayay inuu war gabadha ka daaya hadiline bay yidhi markaa wiilkiina sida la sheegaya nabaro xunxun bay gaadhsiiyeen arrimo noocaas iyadoo ka jirto baa maanta markii la xusayay ogos deegaanka loo wada dabaaldegayayba waxay ku sameeyeen is-hor istaag hoolashii lagu qabanayay shirka lagu qaban lahaa dabaaldega ee magaalada qabdidahar taas marxaladeeda weli way taagan tahay shacabku wuxuu ballan ku qaaday inuu xusi doono sanad guuradaas maalinta axadda inta ka horeysa haddaan xal loo helina waxaa laga yaabaa inuu shacabku de waajibkiisa uu guto uu si xooga ku xuso intaas baa qabdidahar ka jirta waa marxalada aad isdhahayso markii aad aragto dhacdooyinka isdabajoogeen gobolada qaar haysanin maxaa qabdidahare ku gooniya ama qorxay ceel ogaadeen baa isagana laga soo sheegayaa marxalado cakiran oo noocaas oo kale ah oo degmo ka tirsan qabdidahara arrintaa waanu oga digaynaa maamulka hadda xukunka gacanta ku haya waxaanu leenahay marxaladii cidhiidhiga iyo maxay ahayd iscaburinta iyo hadafka laisku caburinayo waa laga soo gudbay jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo qorigii bay dhigtay qalin bay qaadatay heshiis ay dowladda etoobiya federaalka la gashay bay ku heshiisay ee kusoo gashay deegaanka xaq bayna u leedahay inay dhaqdhaqaaq ka samayso si nabadgelyo ah is-hor istaagna wax ku sameyn kara male marka arrintaas waa inaad ka fiirsataan waa inaynan waxaad ii suurtagelaynin uun waqtiga idinka luminin baynu leenahay shacabka magaalada qabdidahar iyo guud ahaan shacabka soomaalida ogaadeen iyo lama hor istaagi karo mabda-ooda iyo qalbiyadoodu ka buuxaa waa adduunkana shacabka awoodda ugu xooga badan waa shacabka ma aha xukunka cidda haysa ciidanka meesha ka jira maamulka markaa amarka bixinaya awooddu ma aha awoodda rasmigii waa shacbiyadda ama wax walba oo dowlad meel ka jirta ama nidaam dowli oo meel ka jira shacbiyadda ugu xoog badan marka yaan la isku dayin in la caburiyo shacabka hadda qoraal baan arkaa muddo 3 saac ka hor uu soo geliyey gudoomiyaha unugta xafiiska qabdidahar uu leeyahay waa inuu axadda iyo sanad guuradii ogos maalinka axadda bal fiirin doonaa sida ay isugu dayaan inay hor istaagaan sanad guurada ka dhici doonta qabdidahare laakiin waxaanu leenahay war ha ku jabina ma hor istaagi kartaan waxani waa webi shacab oo la fasaxay oo si sharciyana inay ku dhaqdhaqaaqda loogu talagalay heshiis iyo nidaam dowli ana ku yimid marka ma hor istaagi kartaan midna aynu isla fahano aad baan kuu salaamayaa nuur garbow aad baan kuu salaamayaa mudane long time sameynaan arag salaan gobonimeed baan ku salaamayaa salaan tii ogos baan ku salaamayaa maanta waa maalin ogos loo wada jidbaysan yahay waa in loo sheego midna anigu ma aaminsani dhibaatada waxaa dusha loo saarayaa new boolisku 11 gobol bay ka dhaqdhaqaaqaan haddii nidaam new boolisku uu ku dhan yahay ay tahay 11 gobolba caqabad baa yaa ka jiri lahayd goboladii kale caqabad kama jiraan new booliska ma aha waxaa laga yaabaa shakhsiyaad ku dhex jira inay yihiin
shakhsiyaadkaas maamulku hadduuna raalli ka hayn tallaabo ka qaadi karaa. wuxuu markuu mar dhaco, laba dhaco, saddex dhaco, looguma dhihi karo ninkii askariga cilada lama saari kara. askarigu markuu maalin khalad sameeyo, haddii askarigii khaladka sameeyo tallaabo laga qaado, maalinka labaad askari kale khaladkii ma samayn kareen. waxaad moodaa maxay dhihi jireen, maxay abeeso maxay ka xidhiidhsan bay ahayd maamulku inuuna arrintan daacad ka ahayn, uuna si dhab ahoo daacadnimo ah uuna u gelaynin baad moodaa. laakiin waxaanu leenahay war waxaan munaafaqeed iyo munaafiqnimo iyo mujaamalad ooma baahno, kumana shaqaynayso. waad ogtihiin waxaan waa kacdoon shacab, waa nidaam gobonimo doon oo shacbi oo 35 sano ay shacabku wadeen, haddana inay si nabadgelyo ay kusii wadaan ay rabaan. waxa kaliyan ku wada socon karna waa midnimo, isfahan, iyo inaynu isu dulqaadano, inaynu daacad ka noqono, inaynu marxaladan Ethiopia ay hadda gashay aynu ka faa'iideysano, qowmiyaduhu ay wada socdaan. laakiin mujaamalayn iyo cagwareejin kuma wada socon karno. idinkuna xukunkii baad gacanta ku haysaan, annaguna qalbiyadii shacabkaanu gacanta ku haynaa. marka wax ma isku darsanaa mise qalbiyada shacabka awood badane? marka dambe awood baa la isu sheegtaa. taas waa in maamulka loo sheego oo lagu dhiirigeliyo. ayagay maanta dan ugu jirtaa, maxay ahayday dan hadda maanta ayagay ugu jirtaa, xaqiiqdu dan ayagay ugu jirtaa. in maxay ahayday in midnimo la ahaado, in la wada socdo, in wax laysla yeesho. baashan ogosi waa heeganon baalka gobayga haba meel ka marin ka keentay gobayga ma laga joogo. hey ogos ciyaar ma armayna ahayn deeqow. war maxay ahayd baashi? war maalinkii heesti maxay ahayd oona leh? ma idin nasiyaa haddee ma idin nasiyaa, waan sii wadanaynaa sheekada. شوفه 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 مقالك ما اوكي بقى. انت aad u dhageysta dhanaan war idriisow halgamay aad baan kuu salaamayaa. aniyo idriisow ma garaniniyo magaaladii qabdi dahrayda iyo gobolkii qoraxay ahaa qaleen buu noqday. xaajada ma fahmin. inta bashir dirgax yidhi baa ku filan bahaa. waa awood fulineedo oona laf isticmaalsiga diiday. waxaan u malaynayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jirto mabaadiida iyo hadafka ururkani inuu yahay hadaf shacbiyeed, wax hor istaagi karana ayna jirin. 100 milyan uu nimankii tikraa oo nimanka qanacaad daran ayna jirin ay horboodayeen baa hor istaagi waayey, ilaa ay heer in heshiis lala galo oo nidaam heshiiseed wixii lagu dhameeyo ay gaadho. waana midda kaliya wax kusii wada ahaan karno. marka waa in la isku xaq dhowraa heshiiskii, waa in la tixgeliyaa nidaamkii heshiiska meesha lagu yimid, waa in si nabadgelya oo midnimo oo shucuubta kale Ethiopia qaabkay isbedelka uga faa'iideysanayaan aynu uga wada faa'iideysano. waa in maamulka
uu runta u dhaadhacaa uu liqaa in awood jirta ay tahay inay tahay madaxdii berito intaa inay fahmaan weeye oy ayaga qudhoodu sii xeer dhigtaan jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waxaa la odhan karaa waa madax iyo mas-uuliyiin bisayl leh baa hogaamiya sababtoo ah qorixay ma cadaani bay sugaysaa wuu imanayaa cadaani dhib maleh wuu imanayaa mas-uuliyiintay sugaysa ka mid yahay xaqiiqna weeye adduunkani mid la hor istaagi kara ma ah taariikhdii baa soo wareegtay 24 sano mise 25 sano ay soo wareegtay waa markii kale cadaani muxuu yidhi warweydin dharagteene xaqle iyo nin la aragtida ka dhexeeya miyuu yidhi tii weeye xaqle iyo nin la aragtida ka dhexeeya 1992 iyo 3 dhamaadkeedii bilowgeedii bay onlf si sharciyana 87% kula wareegtay kursiga deegaanka codkii ugu dambeeyey ee shacab codeeye uguna horeeyey buu ahaa haddana waa 2020 iyo marxaladii shalay oo biyo kama dhibcaana laakiin waxaa ilaahay mahadiye in ay ururka onlf uu ku salaysan yahay mabaadiidii diiniyankahayd ee ah ninka cafiska badan baa guuleysta kuwii shalay dhibaatada u geysanayay kuwii shalay soo xaqirayay kuwii shalay dembiyada ka gelayay inay cafisay oy tiri wuxuba shacabkanagii aan u dagaalamayna bay ahaayeen marka cafiskaas ka faa-iideysta yuuna idinla gelin inaanu garan laanahay in aanu mabaadiida iyo khaladaadkaad gasheen aanu ognahay dhalinyarada new booliska haddaad shalay hore u khaldanteen maanta khaladkii ha kusii soconina lama aqbali karo lamana ogolaan kara gabadh 20 sano dhibaato iyo calool xumo iyo kusoo jirtay oo xabsi iyo dhibaato lasoo kulmaysay in maanta mar labaad ay wadadii ay marto oo laga oohiyo oo dhibaato loo geysto wax la aqbali kara ma aha wax shacabka soomaalida ogaadeen iyo guud ahaan soomaaliya ay ogolaan karaan ma aha wax gobonimo doonka kaadirka iyo xubnaha ururku ay aqbali karaan ma aha wax mas-uuliyiintu laftigoodu aqbalayaan ma aha nidaamkii heshiiska ee etoobiya lala galayna nooca ma ahayn nidaam wuxuu ahaa si nabadgelya lagu dhaqdhaqaaqayo si nabadgelya awoodda lagula wareegayo waan la wareegaynaa ilan codka waanu ku guuleysano waa iska caddahay intaas baan dhihi lahaa qolyaha qabdidahar iyo qoraxay iyo fariin baan u diri lahaa oon leeyahay 10kii gobol ee kale wardheer baa ugu dambeysay oo sheekadeedu waa iska soo dhammaatay xaqiiqda la fahmay idinkuna xaqiiqda soo arka oo fahma xaqiiqdu waa caafimaad xaqiiqdu caafimaad bay tahay xaqiiqda soo arkaan dhihi lahaa marxaladahan aad ku dhaqaaqaysaana shaksi walba dembiguu galay kii shalay la isku cafiyey ma ahaan doono kan hadda iyadoo nabada oo dadkii is cafiyeen oo midnimo lagu baaqaya aada sameynayso taas waa inaad fahantaan aad baan idin wadaa salaamayaa halgamayaal saaxiibayaal shacabka guud waxaan idin leeyahay hambalyo ogos waa maalin taariikh gooniya inagu leh waa maalin xusuus gaara inagu leh waa maalin aynu ognahay inta shuhada ee u maqan inta gabadh ee dhibaato usoo mudatay inta hooye ee iil u gashay rafaadkeeda iyo dhibkeeda inta anigoo aan ka mid ahay waalidkii muddo ugu yaraan 18 sano 19 sano ay kala maqan yihiin dhibaatooyinkaasoo dhan halgankii gobonimo doonkaha ee inagu qabsaday baa yaa 35 jirsaday oynu u dabaaldegaynaa marka waa mid mudan inaan isugu wada hambalyeyno mana ogolaan doono arrimaha qabdidahar ka dhacaya guuleystaan idin leeyahay waxaan si gaara aad aan u leeyahay hambalya madaxda soo dhabar adeegtay ee aastay 35 sano kadib ayagoon madaadiidii ka leexanin oo halkii u taagan tahay qanjuhu oo weli hogaaminaya 35 sano ugu soo galay ee ilaahay nabadda kusoo gaadhsiiyey qolyahaas ayaga hambalyo gooni aan leeyahay hambalyo way ka nasiib badan yihiin dadka qaar saan isleeyahay ogos ciyaar maaha maalintii iftiinkiiyo iliisku nuurku baxay ee albaabada adduunkiiyo rajadu noo adkaatay weeye ogos waa maalintii aqoon-yahan 6 aragti dheer aas-aaska noo dhigeenee hadaf gobonimo
istaagay August waa maalintii odayaal iyo indheergalad dhalinyaro idlaatay hooyo iilka gelisee wixii ugu adkaa iyo dhiigga iibka looga dhigay kuma ilaawi karaye August baanu leenahay. Cabdifatax Jaabo aad baan kuu salaamayaa. hambalyadaas baan rabay inaan ila wadaago arrinta yar ee qabiidahara inaan fariin u gudbiyo maamulka uu madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar ugu horeeyo ay ku jiraan golihiisa wasiirada ilaa gudoomiyaha degmada ama qabalayga ugu hooseeyo baan fariin u gudbinayay oo lahaa mabaadiidan waa mabaadii asliyan waa mabaadii shacabka qalbiyadiisa ku nool ma hor istaagi kartaan midnimada ka raaco khudbadii aad maanta ka jeedinaysay jigjiga maamulkaagu ha wada saameyso laakiin hadday noqoto khudbad iska beer la xawsi oo markii maslaxa la taagan yahayna la jeediyo markii maslaxa laga tagana wad talaabo kale oo guracan la qaado ma ogolaan doono. 35 sanaan soo dagaalameynay 20 sanaan halgan soo wadnay waanu fahansanahay waxa shakhsiga xaqiiqda dhabta iyo wajigiisa runtaan fahmi karnaa siyaasadanu garan karnaa. waa in maamulka hadda jooga hadalkiisa carabka uu ka sheegaya iyo ficiladiisu is yeeshaan sida kaadir ilaa madaxda ugu sareysa ururka ONLF hadalkooda midnimada ku baaqayaan iyo iscafisku oo ficilkoodana ugu jiro oo ayagoo dhibaato loo geysanaya ay ugu dul qaadanayaan in ayagana laga arka weeye. qolada dhalinyarada ee New Booliska waxaan leeyahay ciidankii deegaanka tihiin wixii shalay aad samayseen waad sogtihiin laakiin maanta wixii shalay waa la idinkuma bahaysanin oo lagama daba tagaynin waxaa la yiri shalay waa la khalday bal inay saxaan marka khaladkii ha ku sii soconina khaladkii inaad ku sii socotaan la idinkama ogolaan karo. aad baan mudanayaa idin wada salaamayaa. inta heestahan dhaantadii baan ka tagayaa waana sii gudbayaa guuleystaan idin leeyahay gobonimo idin rajaynayaa ilaa axadda oo dhaci doonto sanad guurada magaalada Qabridahar barnaamijka update baan ka dhigi doonaa haddii la hor istaago rabitaanka shacabkana jawaabo laga bixin doona insha Allah. guul iyo gobonimo idin rajaynayaa. waxaan idin leeyahay shacabka Soomaalida ogaadeenya ama Soomaali galbeed waa hal cid kale qoqobi karta male cid wax ka bedeli karta male cid maxay ahayd hor istaagi karta male 100 milyan Ethiopia hor istaagi waayo iyo heshiis la gashay markii ugu dambeysay miis waa hadal saddexaad ku soo gashay maamul aan haysanin codka shacabka ama rabitaanka shacabka aan ku imanin la dul keenayna ma hor istaagi karo. aynu midnimada wada ilaalino waa idin qadarinayna qadariya mabaadida guuleystaan. Ilaahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaas ka tagay. Salaamu calaykum.